السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي برنامجكنا سويدن iyo maanta haddaba inta aanan idila wadaagin qodobka aan rabo maanta inaan kusoo qaatay barnaamijka muuqaalkan ila daawo. Det här är den värsta massskjutningen i svensk historia. Osäker om jag kommer fortsätta plugga här. Man vet aldrig om det kan hända igen. marnaba lama ogo inay dhici karto dhacdadan oo kale waxa uu ahaa hadalka u dambeeyay muuqaalka aad daawanaysaan. dhacdadan waxa ay ka dhacday dalka Sweden gaar ahaan magaalada Örebro maalinta talaadadii ahayd ee taariikhdu ku aadaneed 4 bisha labaad ee sanadkan 2025. waxay ahayd dhacdo si aad loo hadalhayay dalkani Sweden iyo waliba caalamku idil waliba cabsi iyo markaasi argagax ku abuurtay dhammaan dad badan oo markaasi ku dhaqan dalkani Sweden. booliska ayaa maanta oo Jimco tahay 7 bisha February xaqiijiyay in tirada guud ee dhimashadu marka lagu daro ninka markaasi dhibkan geystay oo ahaa markaasi nin 35 sano jir ah isla markaasina u dhashay dalkani Sweden inuu markaasi ka mid yahay dadkii markaasi ku nafwaayay meeshana ku dhintay. tirada guud oo markaasi la soo bandhigay maanta waxay tahay marka 7 dumar ah iyo waliba 4 rag ah oo ku jiro ninka dhibka geystay sida ay markaasi soo bandhigeen booliska. dabcan qofka ugu yar ee markaasi meeshaasi ku geeriyoodo da'diisu waxay boolisku ku sheegeen inuu yahay 28 sano, qofka ugu weynna uu jiro 68 sano ayna tahay qof dumar ah. safaaradda Syria ayaa sidoo kale waxay sheegtay in 2 qof oo kamid ah ay yihiin dadka markaasi meesha ku dhintay dad u dhashay dalka Syria. sidoo kale safaaradda Bosnia ayaa iyaduna waxa ay xaqiijisay in 1 qof kamid ah uu yahay qof u dhashay dalka Bosnia. inta kale oo meesha ku dhintay weli warbixino badan oo ku saabsan dadka ay yihiin iyo halka ay ka soo jeedaan weli lama sheegin lamana shaacin. arrintan maalinta ay dhacday ilaa hadda waxay markaasi tahay arrin si aad ah loo hadalhayo isla markaasina isha si aad loogu hayo warbaahinta sida ay arrimahan dhacdooyinkani u soo gudbinayaan iyo waliba siyaasiyiinta markaasi wadanka qaabka ay arrintani ugu hadlayaan ama ay ugu falcelinayaan. dabcan waxaa sidoo kale hadalhayn weyn dhalisay oo sida aadka loo hadalhayana kamid ah haddii ay dhici lahayd qofkan maanta dhibka geystay haddii uu ahaan lahaa qof qoomiyad kale ama qof wadan kale kasoo jeedo ama qof dabcan u dhashay maaragtay dalalka kale ee ku dhaqan dalkan Sweden oo aanan ahayn qof Swedish ah siday hadalhayntu noqon lahayd. waa waxyaabaha ugu badan ee markaasi sida aadka loo hadalhayo oo walibana hadalhaynteedu socoto. sidoo kale hadalhayntu waxaa kamid ah haddii uu ahaan lahaa qof markaasi magac muslim wato iyo waliba markaasi qaaradaha kale adduunka ama wadamo kale markaasi u dhashay siday naqan lahayd arrintan in loogu hadlo. waxay markaasi arrimaha sida aadka ilaa hadda loogu doodayo isla markaasina aadka loogu hadlayo. oo ku maasan tahay daawashadaada waxaan jeclaan lahaa inaad qaybta comment ay wala wadaagto dareenkaaga sida uu noqday markii aad dhacdadani ku soo gaartay ama aad maqashay. adigoo maasan inta aan muuqaalkiisa ay ku kulmeyno walaalkiina Cali Isluub idin leh sida iyo nabadgelyo.